إلهي مرول بحسوسنو ضدك إلهي حسوسي آخرة حسوسنو ضدك آخرة وقير مرول با لبدا قلبي إن هدي كويناتو معصية ويران وطاعة يا بدم أفقدوا مرول بإلهي حسوسين هي وآخرة حسوسين هي بعلماء يرادين صدح صفة إلهي سيا تعجيل التوبة وفق مرول بإلهي حسوسا إنه دمان أنا حسوسا بل يري وفق التوبة دو أودك دقا توبة دي بودك ما يودك دقي صفة الله بعد إلهي أوصية متقانا وفقاس قناعة في القلب أرزاق دي أدويدنا أنت إلهي أقدري أيو قفقاس الرالي كل نقضة تصدحاتنا بل يري النشاط في العبادة طاعة إلهي بقفقاس وجه جبنانا يا لأن الصلاة كود بيراتو وصونك كود بيراتو وقرآن أخرسك كود بيراتو وفردك مسكتك كو معاناتو ودين تبرشده كود بيراتو وعمل فلك دين تكو معاناتو وحكينا يا وهدي قلبي يا مرول بإلهي أتكو هيسد آخرته لا يكون هرتالو لبدا سي هدي قلبي نا يكون يراتنا لبا صدح عقوبة قف كود على صدح عقوبة عقوبة كوباد waxa weeyaan bal la yiri toobada ayuu dib u dhigtaa hore uu toobad keeni maayo illa waad dhimanaysaa isma leh wuxuu isleeyahay waad noolaanaysaa buu isleeyahay qanaaca ma yeelanayo qalbigiisu qanaaca ma yeelanayo waxa adduunka maal yaalo oo dhan sidoo ku heli lahaa ayuu habeen iyo maalin ka shaqayn man helayo halka ka qalbigiisa aakhiradu ku weyn tahay cibaadada iyo taacadu u dhib yaraanaysana kana waxa ku dhacaysa al-kasal fi al-ibada cibaadada ilaahay baa ku noqonaysa culays miqdaad saxaabiga la oran jiray radiyallahu anhu ayaa habeenkii markuu jiibsanayo waxa la yiri uu galgalan jiray saas uu galgalan jiray sida dhariga marka biyaha la saaro ee dabku ku ziyaaday biyuhu karsamaan sida biyuhu ay isku laba gadiyaan ayuu habeenkii u galgalan jiray sidaas marka ay xaaskiisu ku oran jirtay maxaa la galgalanaysaa maad seexatida marka uu ku oran jiray cabsida aan naarta aan ka qabo ayaa habeenkii hurdada iga qaaday buu oran jiray nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam waa kuwii saxaabadu ku yiri shibta nabi allah ciradii baa kugu badatay bariyahan maxaajira marka uu nabigu yiri shayabatni hud wa akhawatuha suratu hud iyo walaalaheed baa cirada iga soo saaray buu rasuulku yiri suratu hud wa akhawatuha amma yatasaalun idha ash-shamsu kuwirat idha as-samaa'u infatarat idha as-samaa'u inshaqqat suradaha qiyaamaha ka waramaya ayaa nabi maxamed cirada ka soo saaray suratu hud markii la baarayna آيات النبي محمد عرضة كسوة صارت وحي علماء كل شيء فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم كما أمرت وحد كنت توصناتا سدي إلهي وكو أمري أذيك هو عوي عن استقامة مركب علماء قال لين وحير هذين والله ببورودو أفقا دشو دا أولا دقي أولا يقفنا آذنا هلكا ظلمر صدود سعنا يا صدود سعنا دقدقوا سعن مايو عبسي بكم مرة يا هلقا عبسي فاستقم كما أمرت سيدي الله قو أمرك توصنو حق إلهي إلالي حقوق ذا بني آدم كقوليهين إلالي مالك قيامة وحاتم هدا هذا بني آدم وحبك كقول شيئا آخرها هدات ما هدا هذا وحلقوه حيستو وكي النبي يقول لها أتدرون من المفلس قفك عيدا مياتك عنان صحابة وحيد هذا عيد وحنون قانا أنكو قفك الدينار يدرهم يمتاع وحبا عنان هيسن markaa buu nabigu qofka caydhu waa kee waa banka qiyaamuhu la iman doonaa salaad iyo soon iyo zakat iyo xaj buu la iman doonaa laakiin dad fara badan baa halka hor joogsan doona dadkaas isagay wax ku sheeganayaan mid waxa uu leeyahay aniga ninkan waa idilay mid wuxuu leeyahay aniga waxaan ahayn buu igu sheegay mid waxa uu leeyahay xoolahaygay buu iga dhacay mid wuxuu iga leeyahay dhiig buu iga daadiyay markaas la oranayaa waxa li wuxuu ajar iyo khayr soo shaqaystay ka soo qaado ayaka siiyo janno ku galiya markaa baa la oranayaa waliba dad kala hadhay oo adoonka ma aragtaan ku sheeganaya xaq markaas ilaahay oran doona dunuubta iyagu ay soo shaqaysteen ka soo qaado isaga madaxa u saara dadna naarta ku tuura wal iyad billah muflis qofka caydho waa kaas khayrku soo shaqaystayna dad kale ayaa jannada ku aado jannada ku galay dambi dad kale ay soo shaqaysteenna isaga ayaa inta madaxa loo saaray naarta lagu tuuray marka istiqaamadu waa maxay walaalayaal waa inaad ku xisaabtantaa mar walba adduunyada waxaad ka baxdaa adoo aan waxba lagu sheegin waa in adag tahay ma arrinkaas laakiin waa inaan toobad keenaa mar walba toobadda inoo furan waana ilaahay u soo noqonnaa
daaru dunya joogna maanta fursad baan haysanaa inagu dadkii adduunyada ka baxay fursad ay ku soo noqdaan ma haystaan way socdeen marka qalbigaaga mar walba ilaahay ha ku weynaado wallah haddii cadamatullaahi qalbiga ay degta bay culimmadu leeyihiin biqadri khawfaka min allah yahaabu alkhalqu minka وبقدر حبك لله عز وجل يحبك الخلق hadba intaad ilaahay adigu aad ka cabsootid ayaa makhluuqun adiga ka haybisanayaan مصايبته إنك كده بحام بين ربان ضيق الصدر إنك بحام بين ربان وحلي وحاد كجبح الهيد عريرك الدنيا عريرك آخرة ومحي حرق إلهي قبصه واتي صحابي الربعي بن عامر وأشياء مارك تاني مدحي وين الرفرس رستم الله ابتعثنا إليكم بكيري رستم قائد قوات الجيش بوها ربعي بن عامر باوي مدول الله صدروا للأرض لصو هذا هذا دجال ربا النذيار بانونا هاي هذا صلح الربا النذيار بانونا هاي ربعي بن عامر مركوي مدي وعود أنكو سداد نوم لين إنسان منهن وعانا ددي لهي أدونك وصو صاري بانهاي يعني صو صاري لهي لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأذيان إلى عدل الإسلام بكيري جيب وحنا الدوية أنكو اسكمنو إيمانه وما الله صو صاري بانهاي ونبي جدي ولا لا صو صاري عليه الصلاة والسلام سيد النبي محمد عالم قال لو صو صاري إنه رسالة دو قارسيو أيا أنكنا هدانا يا أصحابتي سي إلهي بأن صو صاري بكيري لنخرج من شاء سي أن وصارنا كيدونا عبادة أي عبودة ينظمها السدودة ونصارنا ما ركتنا عبادة إله واحد كا وأرك ما أنت مسلمين تو أي فهم لايهين ومن ضيق الدنيا عريرك الدنيا إنا كسرنا ضدك على نوك هنا بود أنك ونصارنا إلى ساعتها نولش الدنيا بلع عجيب بلع كيكا ورجالده عريري بيكون نوشة عريري بيكون جيران مسلم كمركو دين تدبو قاتنا سعة يكون جرا سعة في الرزق وسعة في المال بيكون جرا هم يكون سعة كجرا سعة هم يكون عريري ما قال أيوه نولش واحد عريري قلنا ومحي ومعصية نولش واحد سعادة قلنا وطاعة إلهي ساسو كوري صحابي قاس عريري الدنيا إن نقصرنا نوي من أنكو ونسار نولش الدنيا بلد كيل يواسعني مديدا ومن جور الأديان أديان ظلمك إيه بانت إيه شركك إيه قال لماذا إيه خيانة كل سن إن نقصرنا أيا ندونك وي من نبود أنكو ونسارنا حق عدالة إسلامك جور الأديان دينها باطل كل سن دينها بنت كل سن دينها الظلم كل سن دينها خيانة كل سن أيا نو إيمان إلى نجسرنا نقدح صارنا ونصارنا ضدك ما ركتنا دين عدالة كل سن إسلام مركا رستم بيد أظن أمير كي عيدا كاتهاي ماي أنا مت جماعة مسلمين تكمل أو بنا هاي بيقولي مركا سوري وان صوت شندونا يسكسعوا مصاد نبو ويا مركا رستم وحكوا صدح مع الموت حرب مسلمين تهينا دو تكتان والله عنتد
ood la seexatid ood eegtid deedna marka adii soo noqotood iga warkeentid sidii buu yeelay waa cuyuun saxaabadu ninka la soo diray jaasuuska way garteen laakiin may dilina way iska dhaafeen 3 maalmood ninka jaasuuska ah markuu muslimiintii la joogay ayuu ku soo noqday baa la yiri boqorkii markaasuu ma waraaka ragga aad u tagteen ku diray bal ka waran buu ka yiri markaasuu yiri fursaanun bin nahari wa ruhbanun bil layl buu ku yiri maalintiina waa fardo oo diinta ilaahay bay u halgamayaan oo inay diinta u dhintaan bay heegan u yihiin habeenkiina waa ruhbaan oo waa suufiyiin habeenkiina waa ubaad maba seexdaana gacmaha ilaahay hoos haystaan oo ilaahay bay baryayaan halka inagu khamriga aan cabaynana iyagu khamriga ma cabaan halka inagu ballanta aan baajinaynana iyagu ballanta ma baajiyaan halka inagu aan isdulmaynana iyagu cadaalad bay dhexdooda leeyihiin halka inagu aan kala sarreynana iyagu kala sarreyn male kooga faqiirka kooga qaniga kooga madaxa kooga mijaha ma kala taqaanidin meel kaliya wax ku wada cunaan buu ka yiri ballan hadday qaadaana ballanta kama baxaan beenna ma sheegaan khamrina ma cabbaan sida nolosha adduunyada inaku aan u jecel lahayna inay aakhiro tagaan bay iyagu ay jecel yihiin buu yidhi lain kunta sadaqtanii layamlikunna maa taxta qadamaya haataya buu yidhi haddii aad tahay ka run sheegaya ee sifaadka aad ii sheegaysid ee muslimiinta aad ku sheegaysid hadday muslimiintu sifaadka ay leeyihiin kursigayga iyo khazaa'inta dahabka ee hoostayda taalla maalin ay qabsadaan baragaasi way qabsan doonaan buu ku yidhi nolosha adduunyada raaxada adduunyada ciziga adduunyada sharafta adduunyada horumarka adduunyada khayrka adduunyada yaalla walaalayaal ee dadku maanta ay raadinayaan ilaahay meel kale ma gelin ilaahay wuxuu geliyey inay ummaddu ilaahay u soo noqoto bas in ilaahay loo soo noqdo atuubu ila allahi jamiican maxaa ku xiga ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun falaax baad doonaysaan haa soo noqda haddaad mu'miniin liibaan doonaysaan soo noqda buu ilaahayna leeyahay jamaacan maaha keli maaha jamcan jamc ku soo noqda ummaddu ha soo noqoto ha toobad keento tuflixuun falaax ilaahay baa falaax sheegay war islaamnimada ilaahay baa ku sheegay in lagu liibaanayo xaya cala salaa xaya cala alfalax buu muadinku leeyahay salaada xaggeeda u kaalay liibaanta xaggeeda u kaalaya salaadu waa liibaan salaadoo la tukadaa lagu liibaanayaa meheradaada oo salaadu kugu dhaafta laguma liibaanayo amarka ilaahay oo la qaataa lagu liibaanaa qad aflaxal ayaa liibaanaya dadka iimaanka la liibaanaya salaadii baa lagu leeyahay war liibaanta u kaalay liibaan baa ilaahay sheegay ilaahay baa liibaan sheegaya marka liibaantu diintay ku jirtaa diintaasina alxamdulillah innaka ilaahay diinta uu nasiiyey uu nagu dhaliyey wallaahi dadka waddanka ku nool boqolaal kun oo jeer baa la rabaa ilaah inaan ku shukrino dal diintoodu midaysan tahay caqiidadoodu midaysan tahay madhabkoogu midaysan yahay luqadoodu midaysan tahay ayaa ilaahay naga dhiga maanta innaka oo darkaasaan caalamka maanta waxa ka socda nicmadda ilaahayna siiyey inaan ilaalshanaa linaga doonaya oon hareeraha ka wada joogno oo caamadeena iyo culimmadeenna tujaarteenna fuqaradeenna odayadeenna dhallinyaradeenna dowladdeenna shacabkeenna waxaan ku faanaynaa waa diin waxaa la rabaa inaan diinteenna ilaalshanaa linaga rabaa diintaan saan ku ilaalinaynaa markaas waa inay qalbigeena ku weynaataa diintu kow marka labaadna nolosheena diintu waa inay ka muuqataa oo mujtamaceenna waa inay diintu ka muuqataa dhallinyaradeenna waa inay diintu ka muuqataa wiilasheenna diini waa inay ka muuqataa gabdhaheenna waa inay diini ka muuqataa tijaaradeenna diini waa inay ka muuqataa xukuumaddeenna diini waa inay ka muuqataa mujtamac diiniya loo baahan yahay ummaddu inay isku bedisho laana zamankan maanta aan gallay waa zamankii diinta qof diin haysta unbaa badbaadiyo ogow qof diin haysta unbaa la jecel yahay zamankan waa zamankii diinta weeyaan oo nabigeennaa sii sheegay sal allahu alayh wasalam almutamasiku bidiinihi kalqaabid
على الجمرة وزمن أيا إيمان يا أبو نبي قولي سنة إذا نكر هذا وانقبسنا يا أول لم يدعي نند ما حيست أسيد دين حجسو وفساد كابدنا يا شر كابدنا يا شر كابدنا يا هذا السنة نولانا يا وقت النبي يقول شيء يا كسنة قبسة الزمن كاس وحول لم يدعي نند ما حيب النبي قولي ما حين كريسد لكن حجسو للعامل فيهن أجر 50 رجلا نقدين السنة مركا قبسة كنتن من أجر كود بنبي يقول يو قادنا يا صحابي باسرك عيد من كنتن أنك مسوا كنتن إياك ما يوا كنتن إنك أبو رسولك كويلي كنتن إنك في سنن الترمذي كنتن أصحابتي نبي محمد أجر كودي وقادنا ما أنت زمن قدين تقبسنا نتمسك دينتنا نقبسنا إن شاء الله هذا اللي يردنا علماءنا عامدنا جزاكم الله خير الله ينجى جزاء السيو سادو سوق بشان كلن كعاوة علماء أي نقول مرتقى علينا أنكم أرضي بان علماء منهم ساجد كان مركز العلمي وما دورنا بكيف إذا ستعلمك هالك علماء أي كبحيان رنتي مركزتو أي جوجان ضدك في الصومالي كقول مسائش دينك شيخنا جزاه الله خير وهالك كبحنا يو عالم كودن با كفايدي استمانت marka anagu inaan hortooda ku hadalno ma ahayn laakiin hadana waa talab waa nasiixa weeyaan anagu caamadan wacdina inta badan tujaartu waa laba qaybood qolo waxa jirta jumladayaal oo badaacada jumlad bay ku keenaan iyo qolo waxa jirta tafaariiq layaal Soomaa bagaash layaasha hadee labada ma kala maarmayaan ما كلام مرمان أنا أقول مركز تفاريق ليال بانا حديث كعلماء عن كم قالوا أيان مالين بتولى قارسينا عمدا نوحان لنا عاموي علماء قرب حسينه سين قرب علماء وصينا وحي علماء عن كم قالوا مدها قارسينه طفيل بن عمرو الدوسي أنت نبينا وكم مغلي أيو يرتولكي أنا قارسينه يدرب بكي تولكي إني امرؤ لمطاع في قومي nin waxaan ahay dadkiisu aad u dhageystaan nabi Allah oo shaacira idir waadari nabiga sallallahu alayhi wasallam marka uu soo noqdo uu calaamad laygu gartay ilaahay ii weydii markaasuu nabigu ilaahay u bariyay wajigiisa intaas ay iftiimaysay baa la yiri markuu dhaxdaas sii marayo ayuu ducaystay wuxuu yiri yaa rabbi haddaan maalin ku hagaago meeshaas iyadoo way cadaanaysaa marka waxay ii maleynayaan diintoodii markaan ka baxay inay barsiga dhacday u maleynayaane إله النور كهل كان يقعدو جاد الكفرس كي قال لدع يفتين كي يقبل بويلي والله يقبل لي ونشلي إسلامي أي دعاء صلاة أقبل يا إنك أنا دعاء إنك رحمات يا نشلي إسلامك كرامات كدر بك ظاهر إسا هي نصرة دي إنك دين الإسلام كقول لنا ما أمن سن دعاء إلا أقبل يا مات أو تجي وعلى إنك أستولك كرامه ولا تجي كرامه لنبيك كرامه ويديستي كرامة دينا ولا سيئي وعلى إن يربا كسور رميسي انتو دبدا ويديدين مركابو كسور نقضي النبي صلى الله عليه وسلم مركابو نبيك ويمدو كويري ريدوس إلهي يا رسول جي سوي عاصيين حبار بولي النبي الله إلهي حبابيه مركابو نبيك قبلة وجيستي قعمه كرو تاقين صحابة وحي لي النبي قلوا حبار تمايو وحي رادين ريدوس ويهلاك سمين مانتا مركب النبي الله الرد وصوه هذا قلبي وجنا هذيك حياة الله دين تجعلي سيبه مو هبارم سود دعاء ده الرئيس طفيل بن عمرو الدوسي من النبي يقول يا ري هذيك أنا وحى وكور طفيلو مركب المدة خير كادو شيء يسد قد بربوكيني ودتك تجعلي سيها فرحين دتك نهجي دعوة أنا يسقي بالله صحي وأنا ودعي النبي يقول لبدا أبو الله النقضي لبا صفو عجيبة دعوة كسر ليس طبيعة وناكسن يدعو لبدي بكل نقضي قوم كيسا عن بكرة أبيهم ريدوس وأبا هريرة ودح سعودو أي نبي كان يكو صوت إسلام مدينة المنورة كرامة دي كما إسلام وعكو إسلام أخلاق دي يدعو دي انتي نبي وكم مغلينا ومدي سوء قرسي إنك أنا ما أنت رجعنا على الكافر يقولي هم كنا قلنا إنه وعلى جاي أبا حديت الضوء قف أقل كوسوين الصحابين كي
in ama laba ay ka tukato ama saddex ka tukato taariku salaaqa loo dhex fadhiyana ka warrama marka dacwadda ma aha mas'uuliyad culimada kaliya saaran hamoodina ummadan ilaahay ba shaqada diinta ugu talagalay inay ka shaqayso إن شاء الله علمك علماء أن كقادنا جملة كقادنا إنه تفاريغ لنا قضايا وديار ومدة قارسيو يا ما شاء الله الله ينبارك يا جزاكم الله خير استاذ نوصل دويسنا الله ينوصل دويو كل جينا جنة الفردوس الله ينقو كل ميو وحق أنكو هذا الله ما ركتنا وحي أنا صيمنا إلهي بأن وفجي وحي أنقفنا وقف حقيقة كيمدي إلهي بأن دمداف ويدي سننا وصلى الله على سيدنا محمد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أمنك الله إنه زياديو إيمانك الله إنه أتكيو dad badan oo walaalaheena ducadoon xanuunsan caafimaad sariic Allah siiyo qofbaal ka kurbeysana kurbada Allah ka qaado muslimiintana meel kasta adduunka joogan muwaafiqiin midnimana Allah siiyo sallallahu alayhi wa sallam